بسم الله الرحمن الرحيم waxaan u tacsiyeynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto gaar ahaan kuwii dadka ehelkooda ay ama ku nafwaayeen ama ku dhaawacmeen ama qaarkood ilaa haatan aan gacanta lagu haynin dhabtii waxaan inta badan booqdaa ama aan ka soo waramaa goobo ay dagaalo ka aloosan yihiin ama qaraxyo noocan oo kala ah haba ka yaraadaan qaarkood ay ka dhacaan waxay arintu igu cadaatay oo aan aad iyo aad naxdin u dareemay markii aan imid xarunta gurmadka ay dawladdu samaysay ee aan dhageystay sheekooyinka qiirada leh ee dadkoodii ama ka geeriyoodeen ama ka dhaawacmeen ama qaarkood ama gacan ku haynin oo ah dad aad u tiro badan ilaa hadda aan la ogeyn meesha ay jiraan iyo raq iyo ruux halka ay waxay yihiin marka dhabtii waxaan oran karaa wax walba oo dhaco waxa fiican in wax laga barto waxaan filayaa dhacdadani aadka u murugo badan ee ummadda Soomaaliyeed saameysay inay noqoto mid ay ka dhashaan wax wanaagsan oo mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed ay u aayaan waxa ka dhasho wanaagsan mustaqbal wanaagsan baa u rajeynaya ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay tan ha noqoto mid lagu midoobo insha Allah taala